dadka waxa ugu aqli badan ninkii adduunyada ka tagay intaysan ka tagin ka hor intaynan ayadu ka tagin qofkii yiri raali ahaw oo asagu markaas ba aan aad ugu mashquulin xagga u jeestay ayadoo rabto oo uu la joogo ka tagayba jismigiisi waa xaadir adduunyadii waa joogaa laakiin qalbigiisu aakhiru aad waxa yarka uu ka quudanahayo wax badanna uu ka sadaqaysanayo adduunyadu intaynan ka tagin ka tag adug macnaheedu waxa weeyaan intaynan geeridu kugu imaan oo haaraatay intay kugu dhifato aysan saas ku tuurin oo 2 mitir aan lagugu shalwin oo hal go'o cad aadan ka qaadan waxa noqotaa nin intuu fahmay adduunyadu waxay tahay sahay fiican oo fiican ka qaata intaysan xoolaha kaala harin leen xoolahani way harayaan waana laga dhaxlayaa adigu malihid maanta laakiin waa leedahay ka tag intaynan ka tag wa anaara qabrahu qabla an yaskuna yaa ugu aqli badan dadka qofka qabrigiisii iftiimiyay oo nalal ku xirtay oo gogladay intuunan degin ka hor qabrigiisii ayuu wuxuu diyaarsaday gogasha loo dhigahayo iyo iftiinka loogu xirahayo iyo wuxuu la tagahayo ayuu qabrigii gogladay intuunan degin ka hor macnaheedu waxa weeyaan qabriga yaa ku goglahaya qabriga waxa ku goglahaya amaluka saalix ayaa gogol kugu noqonahay amalkaaga wanaagsan waa midka qabriga ku nuurinaya oo ku goglahaya oo ku iftiiminayo qofkaani marka qabriga intuu san degin ayuu u diyaar garoobay qabri qurxoon oo goglan oo diyaarsan inuu dego hadda waxa aad la iskugu mashquuliyaa dadka dibadda jira xoogaaga yarka ah oo uu helo qof qaraabada ah ama saaxiib uu ku kalsoon yahay u soo diraa meeshaan hadda ka bacdi wuxuu leeyahay mustaqbal dheer ma leh waxaan rabaa mustaqbalka dalkayga inaan ku soo laabto ilmahana aan ka soo kaxeeyo qurbahan meesha asagu uu jecel yahay oo dadkiisa iyo deegaankeeda uu leeyahay ayuu wuxuu leeyahay guri fiican iga dhis gurigii baa loo dhisayaa waa ka fakarayaa waxaa laga yaabaa 2 sano 3 sano guriga dhismihiisa inuu wado haba waxa loo dirahayaa naqshad uu doorto markii naqshadii uu waafaqo ugu qurxoonayd oo uu doortay ayuu leeyahay wad anuguna lacagta waan soo shubayaa haba meel dhuxuu marayaa sawirkii baa loo dirayaa xoogaa buu sii dhawaada waa loo dirayaa maalinta dambe waxa loo dirayaa asagoo goglan oo diyaarsan oo wax ka maqan aynan jirin markaasuu leeyahay haddaba ina keena aan guurne guri fiican baa inoo diyaariyay sidii uu uga fakarahay marka guriga adduunyada oo uu leeyahay waxaan leeyahay mustaqbalkayga waxaan rabaa meel fiican inaan dego meeshaani mustaqbal rasmi ah ma aha waa habeen dhaxyo weey halkaas marka 2 mitir ah ee mugdiga ah ee aan qaraabiya rixim lahayn ayaa waxay u baahan tahay in laga fakaro in ayada laga dhiso guri qurux badan oo qurux badan oo qurux badan waana amalkaaga saalixa weeyaan علامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وعلمدي واوينيد السعودية كمد أها أيا واحد صوب بقر كحيل جاس بقر خالد مركز الشيخ مركو أركية ماشي ودقية هي جورجا ودقية هي الشيخ مقام كولية هي وحو يا رئيس تجورجا ودقية هي والله ياب شيخ مقعان له أو سيدانا أو مدان أو دن الدنيا دن ميلو بلغسو آدايو يا جورجا اسكو مقلمان حنقول لسه نابو يرجوري هذا كون مناسب أو مكتبته اللي دتك ميلها كقابل اللي هيد ماشي حرت كوجو إيمان الله هيد قيبه الدجان كجوري في عم بقول لسه مركز سوحه كويري جوري باتشره
xaafadda saalixiye la yiraahdo aan ka wadno oo mar dhow dhamaanayo oo aan u guuri doono marka waa mahadsan tahay boqorkii waa iska tag xertii baa waxay yiraahdeen xaafadda saalixiye anaga kuma ogin guri ka dhisaysidee sheekh say wax u jiraan wuxuu saalixiye waa meesha qubuuruhu ku yaalaan soo mar dhow guuri mayo halkaas la degi mahayo guriga rasmiga ah waa kaas dhisidda aan dhisaynaana waa amalka hadda aan hayno cilmiga quraanka iyo dacwada iyo diinkan aan hayno amalka dhisahaya waa amalkan hadda adduunyada ku hayno gurigaasna waa degayna marka guriga aan leedahay oo rasmiga oo dhismihiisu uu ku socdaa oo aadan weligaa faaruq ahayn oo aad degaysid marka aad adduunyada ka tagtid ilaa qiyaama ka dhaca aad degnaanaysid waa kaas wuxuu kaaga baahan yahay didaal marka tan saddexaad waxa weeyaan qofka dadka ugu aqli badan wa arda rabbahu qabla an yalqaa ilaahayna raali galiya intuuna la kulmin intuusan ilaahay la kulmin raali galiyay qofka marka naftu ay ka baxayso qof wuxuu jeclaanayaa liqaa allah ilaahay la kulankiisa markaas ilaahayna soo dhaweynaya ilaahay jeclaanaya qofna wuxuu nacahayaa ilaahay la kulankiisa waa qofka aan iimaanka lahayn markaas ilaahayna nacahayaa la kulankiisa adiga marka ilaahay raali gali intaadan la kulmin ka hor arrinkaasina waxa weeyaan fursad qaali ah oo laylatul qadrigu ayna barayso inaynu ka faa'iideysano laylatul qadrigu habeen muayyana kuma jirto nabiga waa la tusiyay markii la tusiyana wuxuu dabcan u sheegay saxaabada markuu u soo baxayna laba nin baa dooday markii doodaasi ay dhacdayna waa la kor yeelay waa la qariyay habeen hebel lama dhihin xikmad baa ku sugan haddii la dhihi lahaa waa habeenkaas dadku intay waxa kale oo dhan iska daayaan bay habeenka kaliya masaajidda camirahayaan sadaqada la baxayaan quraanka akhrinayaan laakiin markii lagu dhex furo lagu sii daayay 10 habeen bay ku jirtaa mid ka mid ah 10kiiba inaad didaashid bay noqonaysaa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam tirsiga isdheer ka dhex raadiya tirsiga isdheer ka dhex raadiya waa arrin marka kugu bixinaysa inaad didaashid oo didaashid quraanka dhamme dhowr jeer baa khatimi kartaa sadaqada badso عفوية يسعفين تكددان سو ما ربت إلهي إنه كعفيه نعم وأضربتها أذوقنا ضدك عفي ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم هدارتين لو عفي أذوقنا عفي سكبح إلهي إذن كي سنة واللو عفين نفت هذا أدعى والدك أدعى ضدك يضلك وأدعى مسلمين تدعى قفك دعاء كاس وضل بدر الدعاء عندنا الدعاء إيا برياها هو مشغول هو بخيل معلم كان جمعة أيضا ساعات بكجرته لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه قف مسلم أو وافق مجر ساعات داس إلهي ويدي سنة الدنيا آخرة وحوناك إلا إلهي والسينية أفرس ساعدنا ولا قريب وحين كشرتا ولي وقتها أوضا باي عصر وقت يدا ضبي كشرتا لكن ساعد هبل لهم ما ديكر أيد الدلال صائم باتهاي أو صومن تهاي قفك صومن دعودي سوي بريه سوى مستجابة هذا ساعدنا قوة فقدت شمعة صائم المدينة قوة فقده والله بس سبب الدعاء اللي أقبله واوي والد بعتهاي دعوة الوالد لولده مستجابة ويان المها قسمه ربتين الدعاء إلهي إنه كوها جاتيو والد كالدعاء دي سوى مستجابة مرك والد صومن وصاعد جمعنا إلهي وافتشي
والدنا دعاء الدعينا هيو المهيسة wax caadi ama kuwa aad loodin la adahay oo lagu imtixaanay u ducee oo khayrkay wanaaga ugu ducee ha habaarin khayrkay ducada ugu ducee furaskaas marka qaaliga ah inuu ka faa'iideysan اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين